السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولها شرفتا حشمتا كرامتا iyo qiimaha mudan ee aanu markasta aad u jecel lahay inaanu runtii wada xiriirkooda iyo la joogooda ku soo dhawaada kanaalkeena caafimaadka ee dhakhtarka caafimaadka qoyska inuu maanta kaga hadli doono general concept dhinaca caafimaadka. ta koobaad ma ogtahay inuu dhakhtarku si fudud uu ogaan karo xaaladda aad ku jirto, tusaale ahaan angry state, sad state iyo sick state. dhakhtarku isagoo aan wax tallaabaa qaadin marka aad u timaado physical expressionka aad samaynayso saddex buu ku ogaanayaa isla markaad hor fadhiisato xaaladda aad ku jirta ama muurka aad ku jirtaa inuu yahay mid cadhaysan, inaad markaa sad iyo sorrow iyo murugo aad ku jirto iyo inaad si dhaba u xanuunsanayso. arrimahaasu markaynu leenahay sad iyo sorrow ama sick waxaynu u jeednaa dhakhtarku si fudud ayaa facaa'ilka aad samaynaysa iyo qaabka aad u soo fadhiisatay uu dareemaya xaaladaadu sida ay tahay. base ma ogtahay dhakhtarku inuu si fudud u ogaan karo marka aad u timaado xanuunkaagu nooca uu yahay, inuu yahay fetal iyo inuu yahay fatigue, inuu yahay mid halis badan oo runtii laga yaabo inuu khatar degdega kugu abuuro oo markaa dhimasho keeni karta, iyo inaad fatigue iyo tabcaan una dareemayso laakiin xanuunkaagu aanu halis ahayn. hase yeeshee mala socotaa dhakhtarku inuu sameeyo ama runtii uu maro 4 dariiqo oo wax ku baadho, oo ta koobaad la yidhaha physical examination, ta labaad la yidhaha chemical examination, ta saddexaad la yidhaha microscope examination, ta afraadna la yidhaho device examination. waa 4 dariiqo ee dhakhaatiirtu ay wax ku baadhaan. base ma ogtahay in ay dawadaadu adkaanayso oo ay dhib badanayso haddii aad la timaado labadan amuuro. ta koobaad waa controversial speech, hadallaha iska hor imanaya, iyo unmatching complaint, cabashooyin aan iskeenayn. haddaad labadaa la timaadana ma ogtahay inay dhibaato fara badani dawadaada iyo halka ku xanuunaysa in la ogaado inay adkaanayso, isla markaa inuu dhakhtarka qudhiisu shakiyaayo oo inaad been sheegaysa uu moodayo. arrimaha sababta aynu maanta u soo qaadanaynaa waxa weeye guud ahaanba bulshadeena Soomaalida ayaa xilliyada qaar qaladaadka ay galaan marka ay dhakhaatiirta galaan waxa kow ka inay cabashooyinka isku daraan, meel maalin xanuuntay ama meelo kala duwan oo kala xanuunaya inuu isku hal mar sheegto. dhakhtarkuna waxa laga yaabaa inuu specialist gaar yahay oo wax gaar ah ku takhasusay. arrimaha aad baynu doonaynaa inaan uga taxadirno. dhakhtarka aad u galayso wuxuu yahay inaad aad u ogaato waa muhiim. cabashada dhakhtarku uu qaabilsan yahay iyo xanuunka uu daweeyo inaad u sheegataa muhiim. haddii kale khalkhal buu ka qaadayaa. waxa kale oo laga yaabaa in uu sameeyo in uu markaas ka jawaabi waayo cabashooyinkaaga ama uu si fudud ku transfer gareeyo dhakhtar kale kuugu diro. dhakhtarka marka koowaad aad u tagayso dhakhtarku specialistiska uu yahay ama professional dhakhtarku waxa uu takhasusaadka uu leeyahay tallaabada qaad. tusaale ahaan oo kale dhakhtar galyaha ama markaas cardiologist ah ama pulmonologist ah haddaad isku qalato dhakhtarka wadnaha iyo dhakhtarka sanbabada waa laba runtii aad u kala dhib badan. marka inta badan bulshadeena waxyaabaha keena arrimahaas waxa kow ka bulshadii oo markaa waxoogaa xagga cilmiga caafimaadka ama qofkii oo laga yaabo inaanu markaa experience-ka iyo waayo aragnimada qof markaa gaargareeyana uu ku yar yahay. arrintaas waa ta koobaad. ta labaad markaad soo gasho isku day inaad si toos ah u muujiso dhibaatada ku haysata. tusaale ahaan oo kale muurka aad ku jirta ayuu dhakhtarku ayay wax weyn ay u jaraysa. marka aad dhakhtarka hor fadhiisato shacaa'irka iyo shucuurta aad muujinaysaa waa inay ahaataa mid ka turjumaysa xanuunkaaga, sababtoo ah si fudud ayuu wax u saamaxaysaa inuu xanuunkaagu heerka uu yahay ogaado, inuu fetal yahay iyo inuu fatigue yahay. ta kale xusuusnow dhakhtarku waxa uu sameeyaa wax loo yaqaano physical examination oo macnaheedu yahay inuu muuqaalkaaga uu baadho, qaabka wejigaaga, indhahaaga, socodkaaga, istaagaaga. physical examination muuqaalkaaga guud ayuu baadhaya. markaa xusuusnow muuqaalkaaga guud waa inuu yahay mid ka turjumaya cabashada aad meesha u tagtay, oo runtii taas waa waxyaabaha uu wax ku goosto ee sida qofka laabka loogu diro ee dhiiga iyo kaadida looga baadho ayaa muuqaalka qofkana loo baadhayo. xusuusnow ta labaad intan kale laabka ayaa mara chemical examinationka iyo
microscope examinationka waa marka dhiigga laga qaadayo laakiin ka leeyahay device examinationku imika guriyaha ayuu noo yaalaa waa qalab yar oo haweenku uurka ay ku ogaadaan ama dhiigga ku ogaan karto gurigaaga aad dhiganayso oo marka aad ogaanayso inaad positive tahay iyo inaad negative tahay intaas waa xusuusta guud ee dabcan aynu doonayno marka goobta caafimaadka aad timaado inuu dhakhtarku si fudud arrimahaas aad ugu saamixi karto haddaba labada aynu imanayna waxa weeyaan inaad samayso wax loo yaqaano controversial speech hadalla iska hor imanaya hadallada iska hor imanaya waxa ay ku saamaxayaan ama ay kugu ridi doonaan inaan si rasmi ah lagu daweyn waayo 9% ama 9% waxa adafkaaga ka sheegato ayuu dhakhtarku go'aan ku gaadha waa 9% inta kale waa resultiga laabka ka yimaada ayuu wax ku qaata markaas isku day marka koowaad inaad adigu barato xanuunka ku haya meesha laga haya rasmiga ah ku xanuunaysa inaad adigu si toos ah ogaato isku day arintaas way ku anfici doontaa hadii Ilaahay ka dhigo kadib waxa isku daydaa marka aad tagto inaad cabashooyinkaaga ay ahaadaan kuwa badan isla markaana kala gadisan iyo kuwa iska hor imanaya tusaalahaan waxa dhabarka ay xanuunaya haddana waxa miskaha ay xanuunaya haddana waxa lugaha hoostooda haddana madaxa ogow qofka aad la hadlaysaa waa qof isaga qudhiisu marka laga yimaado cilmiga uu leeyahay waa qof bashar ah oo kula mid ah khalkhal baa dhici kara quality-ga dhakhtarka uu leeyahay in kasta ay ku xidhan tahay iyo sida uu markaa kula tiriid gareeyo iyo sida uu patient-ka ula dhaqmo iyo waqtiga uu siiyo waxa laga yaabaa inaan chance kii go'aanka ku qaadan lahaa ay yartay kiyugu inuu badan yahay oo dad badan dibadda ay joogaan marka iska ilaali qodobka koobaad inaad ku dhacdo cabashadaadu inay kala gadisanaato iyo isla markaas inay ahaato cabasho aan ismaaj gareynayn oo aan iskeenayn iyo hadalkaagu inuu ahaado mid iska hor imanaya oo markaa mid contrasting isku abuuraya inta haddaad ka taxadirto waxaan aad ugu rajo weynahay si fudud inaad ku heli doonto dawada ugu fiican ee markaas adiga oo barta xanuunkaaga intaanan meel kale tagin waxay qayb ka tahay dawada bar ka mid ah weey ogsoonow meesha goobta marka tagtana qaabkaad u fadhiisato iyo muuqaalkaagu waxa uu qayb ka yahay daaweyntaada arrimaha dabcan inaan xasuusnaana ayaa muhiima marka goob caafimaad ama dhakhtar caafimaad aad tagto shucuurtaad muujinayso iyo xaaladaadu sida ay tahayna waa mid muhiima intaas ayaynu kaga tegaynaa klibkeenu ku saabsanaa general conceptiga caafimaadka ee bulshada aynu doonayna dabcan inaynu iska xasuusino fadlan la sii wadaaga qaladaadkani waxa uu ka dhacaa guud ahaanba caalamka gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed oo runtii marar fara badan waliba inta badan cabashooyinka kala jaadka dhakhtarka horgeeyo laga yaabo dhakhtarka inaan professionka uu yahay ama marka specialist-iisa aanay garanayn aad baad u mahadsantiin la sii wadaaga u sii share gareeya waxa su'aal qabtaana comment-iga iyo dhinaca gmail-ka ayaynu kaga jawaabi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo mar labaad ayaynu leenahay waqtigu haydin wacnaado. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.